السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wararka shacabka YouTube kan waa Abdulqaadir Xasan Duuliye. maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa haddii aad doonayso sharciga dhalashada ee wadanka Australia haddaba shuruudaha lagaaga baahan yahay muxuu yahay. shuruudahan ayaan halkan kuugu sheegi doonaa. haddaad shuruudahan soo buuxisid 99% waa qasab in sharciga dhalashada ee wadanka Australia aad qaadatid. haddaba shuruudahan ayaan halkan ka bilaabi doonaa. marka ugu horeysa intaan muuqaalka guda galin waxa iga xasuusin ah haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee bartan horyaalka shacabka aad soo booqatid waxa ka codsanaya qaybta hoose iskalaafo inoo reeb waa inoo dhiirigelin sidoo kale laagta iyo commentiga muuqaalka inoo reeb. shuruudahan waxay ka kooban yihiin 11 shardi ayay ka kooban yihiin. haddaba 11 shardi ayaa lagaaga baahan yahay in aad buuxisid. qodobka ugu koowaad waxa uu yahay deganaansho sharci ah oo aan kala go' lahayn oo Australia ah ugu yaraan 10 sano ee ugu dambeeyay oo ay ku jirto 5 sano oo sharci deganaansho ah aad haysatay. macnaha 10 sano ee ugu dambeysay waa inaad wadanka Australia joogtay, sidoo kale waa in aad 5 sano oo kamid ah sharciga deganaanshada wadankaas aad haysatay. haddaba sharcigan ma saameynayo qof aan macnaha wadamada Yurub ka yimid mid kamid ah oo ama dhalasho ka haysta ama ku dhashay. kaliya wuxuu saameynayaa dadka ka yimid wadamada aan Yurub ahayn ayuu saameynayaa oo ay Soomaalidu qayb ka tahay. waa qodobka koowaad. qodobka labaad isagana waxa uu yahay xumaan la'aan ma jirto wax xukun ah oo maxkamadeed oo dacwadeed ha noqoto wadanka Australia ha noqoto dibadda. waa inaysan ka oolin wax maxkamadeed dacwo ah, sidoo kale dibadda ha noqoto iyo wadanka gudaha ha noqoto. waa in aysan jirin sidoo kale cadaalad darro aad samaysay oo laga tabanayo iyo xukun maamul oo markaas aad ku tikrafashay. waa dadka waxa laga yaabaa wadankaas jaga ka qabtay ha noqoto meelaha kala duwan oo qofku ka shaqeeyo. marka waa inaad dhibaatooyin dadka u geysan, waa inaysan jirin macnaha waxyaabo laga tabanayo. qodobka saddexaad waa midka ugu adag. waxa uu yahay asagana waa hab nololeed sugan shaqada dakhliga. 6 sano ee ugu dambeysay 36 bil waa in aad lacagta caymiska aad bixisay oo xiriir ah 36 bil. sidoo kale 36daas bil ee lacagta caymiska aad bixisay marka aad markaasi aad xariisanayso sharciga dhalashada waxa kugu qasab ah intaadan doonistaada sharciga aadan xariisan ka hor in 6 bil oo cadeyn ah oo warqad ah aad markaasi raacisid ogolaanshaha aad ku doonaysid in aad sharciga dhalashada wadanka Australia aad doonaysid. haddaba qodobkan waa u muhiim 3 sano oo toos ah inaad caymiskeeda aad haysatid intaada sharciga dhalashada aadan doonan. sidoo kale qodobka afraad asagana waxa uu yahay aqoonta luqadda, nidaamka dimuqraadiyadda iyo sidoo kale taariikhda Australia. waa inaad si fiican u taqaanaa, waa in luqadana taqaanaa. qodobka shanaad asagana waxa uu yahay daacad inaad u tahay Australia oo aysan jirin wax amni qalqal ku ah oo wadankaas waa inaad samaynin. sidoo kale qodobka lixaad asagana waxa uu yahay ma jiro mamnuuc joogitaan. waa in aysan jirin in laga mamnuucay wadankaas in aad sii joogtid. ilaan wadankaas inaad joogto haddii laga mamnuucay sharci dhalasho ma qaadan kartid ayay ka dhigan tahay. qodobka toddobaad asagana waxa uu yahay lagala noqosho deganaansho. waa inaysan jirin in lagala noqonayo ama la doonayo in lagala noqdo sharciga deganaanshada ee wadankaas. qodobka saddexaad waxa uu yahay go'aan ka yimid wadamada Yurub ee ay ku doonayaan in ay adiga macnaha ay wadamadaas tusaale kale wadamada Yurub mid kamid ah ayaa ka timid. marka waa in aysan jirin macnaha go'aan wadankii aad ka timid oo ku doonayo in uu ku soo ceshto oo wadankaasi aad tagtid. waxa laga yaabaa inaad Jarmalka kale ama wadamadan kale ee Norway oo kale ka tagtay oo sidaas Australia aad ku tagtay. waa in aysan jirin macnaha wadankii aad macnaha ka soo tagtay ee Jarmalka ahaa dacwadiisa aysan furnayn oo ah in aan markaasi Abdulqaadir la soo celiyo kale. waa tusaale kale ayaan ka wadaa. qodobka sagaal asagana waxa uu yahay wax cayrin ah ma jiraan 18 bil ee la soo dhaafay. 18 bil ee la soo dhaafo waa inaan wadanka laga cayrin. waa fahamtay ayaan u maleynayaa. qodobka tobnaad asagana waxa uu yahay xiriir dhow oo aad la leedahay ma jirto kooxa argagixisa ah adigu sidaad rabtay ka dhigato. qodobka ugu dambeeya asagana waxa uu yahay asal ahaansho dhumin dhalasho wadanka aad ka timid. inaad fahamtay ayaan u maleynayaa. macnaha markaad sharciga dhalashada ee wadanka Australia qaadanaysid waxaad dhuminaysaa oo aad ka tagaysaa sharcigaagii dhalashada
wadankii aad ka timid aniga Soomaali markaan ahay Soomaalinimadeed ayaa ka tanaasulaya saas darteed waxaan qaadanayaa sharciga Australia marka 11 kan qodob hadaad buuxisid 99 waa la hubaa sharciga dhalashada ee wadanka Australia inaad qaadanaysid muuqaalka inaad fahanteen ayaa u maleynayaa hadaba muuqaal kale oo tiro badan ayaa soo wada barteeda wararka shacabka YouTube ka subscribe inoo saara like iyo comment-ga waa inoo muhiim inta muuqaal kale ku kulmi doona waxay tagayaa sidaas iyo nabadgelyo